asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal dhammaan waannu ka wada warqabnaa dulmiga aadka u baahsan ee weli ka jira geyiga soomaaliyeed, ha ahaato soomaaliya, jabuuti ama labada gobol ee kale waa soomaali galbeed iyo NFDA. qof aysan dhibaatadan safmarka ahi gaadhin oo soomaali ahi ma jiro, ama si toos ha u gaadho ama si dadban ha u gaadhee. walaalayaal, ilaahay iyo rasuulkiisu sallallahu calayhi wasallam waxay inoo sheegayaan xumaanta dulmiga, waxayna ina farayaan ka fogaanshihiisa. can jaabir bin cabdillah radiallahu canhu can الnabiy sallallahu calayhi wasallam yaa ayuha nnaas ittaquu الظulm faina الظulma ظulmaatun yowma alqiyaama. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ilaahayna wuxuu inoo sheegayaa asagoo inoo sheegahaya inaan dadka dulmiga wada una ilaawsanayn ee uu u kaadinhayo keliya. walaa taxsabana allaha gaafilan camaa yacmalu الظaalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fihi الabsaar. ilaahay waxa uu kaloo aayad qur-aan inoogu sheegahayaa in qof walba waxa uu geysto loo xisaabin doono. wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana midqaalu xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa binaa xaasibiin. dulmiga ka dhaca guud ahaan geyiga soomaaliyeed wuxuu ila qaybsamay laba qaybood oo isa sababa. waa dulmiga koobaadee waa dulmiga ay bulshada dhexdeedu isu geysato, sida dilka, dhaca, kufsiga, boobka ama duudsiga xuquuqo bulsho gaara iyo cadaalad darro guud. dulmiga kale waa dulmi ka dhasha dulmiga koobaad, waa kii ilaahay leeyahay fabadala aladiina dalamuu qowlan kayra aladii qiila lahum faanzalnaa cala aladiina dalamuu rijsan min asamaai bima kaanuu yafsiquun. oo markuu dulmiga dilka iyo dhaca iyo boobka uu bato, waxaa imaanahaya barakac, abaaro, waxaa imaanahaya caafimaad la-aan, waxaa imaanahaya cadaalad darro. marka dulmigani waxaa sababa dulmiga koobaad. dilku waa dulmiga ugu weyn ee bulshada soomaaliyeed ee isu geysatay, waana dulmiga ugu weyn ee bini aadam ama aadamuhu isu geysto. ilaahay waxa uu inoo sheegahayaa in qofka bini aadamka ah uu karaameeyey, aysanna bannaanayn in micno la-aan lagu dilo. ilaahay wuxuu leeyahay walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari walbaxr warazaqnaahum min alطayibaati wafadalnaahum calaa kathiirin mima khalaqnaa tafdiila. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إلهي وحو كلو ليهي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا ليال قفك سومالي مهل عدالة ينرر وناكسن تنية حريدي لحدنكي يوحي كهريبا. waxaa maamul xumadii isdaba joog ahayd ee bedeshii guumaystihii inooga sheekeynaya abwaan allah u naxariistay abwaan axmed ismaaciil diiriye qaasim sanadku markuu ahaa 1964. gabaygani waa gabay caan ah, waana ka dheeryahay intan aan marin doono, laakiin waxaan ka soo qaadanahayaa inta muhiimka ah inaad tusinaysana maamul xumadii berigaa jirtay ilaa iminkana jirta. dembi kuma hadlaayee ma arag dowladdan rabay, isma doorin gaalkan diriyo daartikii galay, dusha midabka soomaalibaad dugulka muudaaye, misna laguma diirsadee qalbigu waa darkii kaala leh. meeshaan dadaan aroorshiyo dirirka eegaayay iyaba waa darxmo ii hadhaye dacaro miyaan leefay, madaraa tooraadkan dhigaan dib ugu soo laabtay, sidii inaan diyaysanahay miyaan dawgi ka halaabay. dhowr sano kadib cabashadaas abwaanka waxaa xukunkii afgembi kula wareegay xukunkii milatariga ahaa. isna waynu ognahay wixii tacdiye ahaa iyo dulmi ahaa ay u geystay ummadda soomaaliyeed, ilaa markii dambe loo adkaysan waayo meeshiina laga saaray. kadib dhicitaankii xukunkii milatariga ahaa iyo 30kii sane ugu dambeeyeyba waxaa siyaasadda ku loolamayey dowlado fadhiida oo aan micno badan soo kordhin, hogaamiye kooxeedyo, kooxo diimeedyo iyo waddamada dariska ah oo faragelinno guraacan iyo dulmiyo aad iyo aad u faraweyn u geystay qofka soomaaliyeed iyo kana geystay dhammaan geyiga soomaalidu degto.
maanta kadib 57 sano gabaygii abwaanku uu jiriyay 1964 qofka Soomaaliga ma haysto nolol wanaagsan oo tayo leh, ma haysto nabad, ma haysto waxbarasho tayo leh, ma haysto adeeg koronto, ma haysto biyo nadiif ah. waxaase wax la yaabay la noqday maankaygana geli waayay sida dhalinyaradii Soomaaliyeed ay ugu nuglaatay dulmiga, nolol xumida iyo cadaalad darrada ay magaxumidu raacday. waryaada maankiin maxaa helay, waryaada damiirkiin maxaa gabay, waryaada maan xaq difaaciisa u istaagno, waryaada maan musuqmaasuqa hor joogsano, waryaada maan al-shabaab iyo wixii ku hayba la dirirno, waryaada maan dadkiina dhiigiisu bilaashka ku daadanayo ka dhiidhino, waryaada maan dulmiga diidno, waryaada maan siyaasi xumaha qabyaalad iyo musuqmaasuq daashaday iska qabanno, waryaada maan wadaad xumuhu wuxuu yahay ku sheegno, waryaada maan qabyaalada diidnay odhanno, waryaada maan aayaheena garanno, waryaada maan bulshadeenna u helinno, waryaada maan bulshadeenna maan dooriyaha kala dagaalanno, waryaada maan dulmiga diidno, waryaada maan gabdhaheenna kufsiga iyo tacadiyada foosha xun loo geysanayo ka dhiidhino, waryaada miyaydaan dub iyo dir damqada lahayn, waryaada miyaydaan ilaahay cadhadiisa ka baqanayn, waryaada miyaydaan in ilaahay idin doorsho ka yaabayn, waryaada maan carruurteenna mustaqbalkooda u halganno, waryaada maan dulmiga diidno, waryaada miyuusan rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam ina odhan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi faman lam yastati' fabilisaanihi faman lam yastati' fabiqalbihi wadhalika adcafu liimaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa amintan kooban wixii aan kaga odhan karay dulmiga iyo bulshada Soomaaliyeed. wallahu ghalibun ala amrih walakinna akthara an-naasi la ya'lamuun.